السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan baarlamaanka waddanka Mareykanka iyo Trump oo ay ka dhex qaraxsan tahay baarlamaanka xubno ka tirsan oo weerar ku qaaday Trump heshiiskii uu la galay Iran. Trump oo arrinka ka jawaabay Hezbollah oo saakay soo saartay faahfaahin ku saabsan dagaal qaraar oo xalay ilaa saakay dhex maray iyaga iyo ciidamada Israa'iil taangiye la gubay hub la furtay iyo alaabooyin kale ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa. qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa nin Falastiini ah oo muddo 25 sano ku xirnaa xabsiyada Falastiin ee xabsiyada Israa'iil ayaa la sii daayay. ninka inta uu xirnaa maalin naxaaskiisa lama kulmin, haddana waxay u dhashay wiil 25 sano jir ah oo markii la soo dayay kadib dabaaldeg weyn ay Falastiiniyiintu u sameeyeen. sidee wax u dhaceen? xaaskii iyo ninkii oo aan is arkin, wiilkii la dhalay oo loo dabaaldegayo, qiso adduunka oo dhan ka yaabisay oo ka dhacday Falastiin ayaynu barnaamijka ku soo gudbinaynaa. baarlamaanka Mareykanka ayaa waxa ay si toos ah u weerarayaan Trump. xubnaha baarlamaanka Congress-ka ku jira oo waliba isugu jira xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga waxay isku raacsan yihiin badankood heshiiska Iran lala galay inuu ahaa kii ugu foolxumada badnaa Mareykan uu galo. waxay yiraahdeen waa heshiis ay ku tilmaameen istislaam, isdhiibid Mareykanka uu isku dhiibay Iran. waana ceebayeen nimankan heshiiska qaatay saanay wax u jiraan cabaadka ka socda Congress-ka Mareykanka. haddaba markaan idin soo warbixin laga qoray saakay sheekadan, haddaba waxaa la yiri xildhibaano Mareykan ah ayaa weerar ku qaaday heshiiska isfahamka ee lala galay Iran. haddaba waxaa la sheegay waxaa imaanaya falcelinno aad u xun oo ka imanaya dhanka xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba. haddaba senator dimuqraadiga oo la yiraahdo Adam Schiff ayaa ku tilmaamay heshiiska isfahamka ee lala galay Tehran inuu yahay heshiis uu ku tilmaamay isdhiibid dhammaystiran oo la isku dhiibay Iran. dhanka kale senatorka xisbiga jamhuuriga ee la yiraahdo Ted Cruz ayaa isna waxa uu sheegay in Mareykanka lala yaabay inuu bixinayo uu Iran siinayo billions dollar. ma ujeeda waa yaabno dhahay billions dollar magdhow loo bixina Iran la siina. war waa isdhiibnay taageen nimankii baarlamaankii Mareykanka qayla ka socoto iyo buuq ninkii Trump ah waa lagu dhageen. Trump markaa isagu isdifaaca markii sheekadu soo kululaatay ayaa isaguna jawaab ayuu siiyay nimanka xildhibaanada. haddaba waxaa la sheegayaa wararkii ugu dambeeyay Trump uu ugu jawaabay. waxaa leeyahay Trump wuxuu sheegay isfahamka heshiiska lala galay Tehran wuxuu matalayaa uu yiri sida uu yiri isdhiibid shuruud la'aan ah oo Iran isdhiibtay uu leeyahay asagana. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay wargeyska Axios la yiraahdo inuu heshiiska uu la galay Iran si looga hortago in dagaalka uu isu bedelo niyad jab dhaqaale oo caalamka oo dhan soo food saara. wuxuu intaasi ku daray in heshiiskii isfahamka ee dhawaan lala galay Tehran uu dhab ahaantii matalayo isdhiibid aan shuruud lahayn oo Iran ay isdhiibtay. ninka nin laga adkaana maaha. wuxuu leeyahay nimankaas adaa isdhiiba soo bandhigin. asagana wuxuu leeyahay adinkaasaas aabisan, anaga waxaan aabisanahay Iran inay isdhiibtay sababtoo wixii ugu weynaa dhan ma samaynaya dhaxduu leeyahay. nuclear maba samaysanayo weligii, marka isdhiibid ka weyn maa jirtuu leeyahay. adduunka oo dhanaaba nabad u keennay. ninkii marka saasaa la isugu dhagayaa, farqaha lays haystaa Mareykanka. adduunkii oo dhanaa ka hadlaya, warbaahintii waxay leeyihiin Mareykan waa jabay, waa isdhiibay. nimanka hadda hadlaa waa baarlamaankii. marka sheekadaasaa socota. dhanka kale saakay waxaa war faahfaahsan soo saaray nimankii Hezbollah.
barnaamijkayga xalay intii la socotay waxaanu soo gudbinay in dagaal toos ay sheegeen xisbullah inay Israa'iil la galeen nimanka Israa'iiliyiinta waxay tijaabinayaan weerar dhulka ah iyagu waxa ay muddooyinkan sameynayeen cirkaasay ka duqayaan meel kasta diyaarada inta qaataan waxay duqayaan hadda soo heshiis lama qaadan Trump waxba ma duqayn kartaan soo ma dhihinoo buuq fara badan ma taagna si ay wax u juqjuqeeyaan waxay hadda isticmaalayaan drone meelay u diraan iyo ciidamadii lugta isku dayeen shalay inay soo geliyaan taangiye iyo alaab inta soo qaateen xisbullah waxay taageen waaba iideena annaga dhulka hal mar ma noogu yimaadaan dhibaka ayagoo weerar ma soo baxaan markii la soo baxay waa tii xalay ay noo joogtay in jugta la isku hay saakay marka natiijadii soo baxday nimankii xalay mid lagu dhigay taangiyada laga gubay hubka ay ka carareen waxa meesha ka dhacay wax la malaysan kara ma ahna leey haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ee arrinkaasi ay ka qoreen warbaahinta gaar ahaan telefishinka Al Jazeera oo xisbullah xogteeda loo soo gudbiyay Al Jazeera waxay leedahay xisbullah waxay sheegtay saakay inay iska caabiyeen ciidan Israa'iiliyiin oo isku dayayay inay ku soo galaan dhanka buuraha la yiraahdo Ali al-Tahir maartay koonfurta Lubnaan ku yaala xisbullah waxay sheegeen in ciidamadooda ay markaa jilbaha u aasteen oo iska difaaceen gawaarida gaashaaman iyo hubkii kale ee ay wateen ciidanka Israa'iiliyiinta ee weerarka ku soo qaaday dhanka waqooyi ee buurahaasi la yiraahdo Ali al-Tahir haddaba xisbullah waxay sheegtay ciidamada Israa'iil inay khasaare xoog leh u geysteen oo ay markaasi hub kala duwan ka baabi'iyeen waxay soo kale tilmaameen 3 kamida dabaabaadka ama taangiyada casriga ee la yiraahdo Merkava in ay la heleen sawaariiq toosa oo ay markaa gubeen oo nimankii ay markaa hubkay halka uga carareen nimankii balaaya ku dhacday diyaarad dagaal oo weyn oo kacaysa oo wax bamgareyn kartana ma jirto Iiraana meesha fadhido xiladahay heshiiskii la jabiyeen nimanka dhulka waxba la iskaga macunaayo marka dhulka taangi kasta hadaa wadato nimankan godadii ka buuxaan inta lagu soo baxaa dhigta laga saaraya marka saakay waxay leeyihiin nimankii xalay waa qararamsanay sida taa u dubanay leeyihiin xisbullah waxa sheegay Iiraan baalkii Israa'iil wali wax war oo dhankeeda ka soo baxay sheekadan ma jirto waayahay marka wararkaas marka halka kaga gudubno saakay marka waxa jira war adduunka oo dhan aad loo hadalayo yaab badan jira newsku waa ku arki jirnay waxba dhacay laakiin waxa dhacay wax la yaab leh nin Falastiini ah oo xabsi ku xiran 25 sano xirnaa dad maba arkayaba ninkaas oo macnaha xaaskiisa iyo waxa kan iyo waa loo diiday wixii oo dhan ninkii marka waxa leeyahay asagoo xabsiga ku jira ayuu xaaskiisii wuxuu ka dhalay wiil u fiirsadaya wiilkaas hadda wuxuu jiraa 25 sano asagiya Israa'iiliyiintu soo daayeen shalay markii la soo daayay wiilkiisii oo 25 jir ah ayaa isla dabaaldegayaan maxaa dhacay marka nin xabsi ku jira oo naagtiisina aan u tagin cunug soo uga dhalay waxay yiraahdeen carabtu waxay bixiyeen wax la yaab leh nutfi oo muharraba oo maartay oo la tahriibiyay shahwadiisii la soo tahriibiyay ninkan waxa la yaabay waa moogtahay nutfiga wax waaye waa shahwadi waaye shahwadi oo ninkan ayaa la soo tahriibiyay islaantii way qaadatay isbitaal ay la tagtay waa lagu shubay wiilay dhashay wiilkii hadda isla dabaaldegay warbixin cajiiba marka saaki waxa ka qoraysa Al Jazeera marka hadaan idin la wadaago video war idin soo gudbin doona waxa leeyahay wuxuu xirnaa 25 sano wuxuu ahaa maxbuus Falastiini ah wiilkiisii ayaa soo dhaweynaya wuxuu ku dhashay wiilkaas nutfi muharraba waxa la yiraahdo
ama shahwad la soo tahriibiyey oo ninkaa inta laga soo qaaday xaaskiisii markaa loo keenay oo iyaduna markaa isbitaalka ay la tagtay. haddaba ninkan waa la soo daayaa la leeyahay wuxuu ahaa falastiini waxaana lagu magacaabaa cabdilkariim al rimaawi ayaa la yidhahdaa. wuxuu ka soo jeedaa magaalada la yidhaahdo beyt rima oo ku taala dhinaca waqooyi galbeedka magaalada ramalla ee daanta galbeed ku taala. haddaba ninkan waxaa la sheegay inuu xirnaa muddo 25 sano ah. haddaba ciidamada gumaystaha ayaa waxa ay kala eriyeen dadkii soo dhaweynayay markii dadkii magaalada ay si weyn uga qayb qaateen farxadda ninkaasi mucjisada dhigay wiilkiisina uu soo dhaweynayay. marka waxaan idin tusinayaa videoga idin tusinaya waxa la yaab loo adduunka nimanka Falastiiniyiinta waa la dhibay waa la ciqaabay waa la dhibay. ninkan marka wuxuu leeyahay islaantaydu wax way dhalaysaa ixira haddaa rabtaan markaas alaabtii la soo tahriibsana mucjiso waa nimankan adduunkii ay yaabay dadka asal loo soo qaaday qalabka lagu soo qaaday baxay dada ziyaara ugu tagay marmar dadka maxaabiista loo ogolaanaa inay la hadlaan. qaara xataa waxay qorayeen mar xaaskiisa ay maaragtay ziyaara ugu tagtay oo macnaha xaaska ma ahane walaasheed ziyaara ugu tagtay iyo niman kale iyo waxaasa marmar u tagtagi jiray. marka u tagaysidna xagga fariisana inta fariisanaysa waxa ay ku dhex jiraya nimankii askarta ahaa xataa looma ogolo qofku in yar oo wax badan inuu qofka la hadlo waa la ilaalinaya. muharraba sidee loo tahriibiyay yab muxuu ku soo shubay ninkan farsamada la isticmaalay ilaa hadda la yaabiyay. marka ninkan marka waxa leeyahay wiilkiisaasa marka soo dhaweynaya videogaan arag. marka waa sheeko runtii aad cajiib u ah. fikradiina iyo aragtidiina bal adikuna ka dhiibto waxaa laga yaabaa dad badan oo cilmiga caafimaadka yaqaana inay idinku jiraan bal noo soo qora. waxa sheekadan sheeka la yaab la waayo adduunka oo dhan ka hadlaya warbaahintii oo dhan ka hadlaysa nutfi muharraba la leeyahay beeshaan alaabtii oo la soo tahriibiyay adduunka wax kasta waa la tahay mukhadaraad oo muharraba la arki jiray hadda alaabtaadi ay tahriibinaysa halkaas islaanta gurigeeda loogu geynaya. haddaba war weyna haddana saaran oo xisbullah ka yimid sida aljazeera ay qorayso. haddaba aljazeera waxay leedahay xisbullah waxay yidhaahdeen saakay haddana inay bartilmaamaysadeen oo ay ka hortageen ciidan israa'iiliyiin oo ah kooxdii labaad kuwaasoo isku dayayay inay qaataan wixii laga dilay xalay meedadkoodii meelaha daadsanaan leeyahay. marka xisbullah waxay sheegtay inay u isticmaashay oo ay ku riday sawaariiq iyo hoobiyayaal ciidankii israa'iiliyiinta labaad ee isku dayayay inay halkaa yimaadaan si ay dhaawacyadoodii iyo kuwii laga laayay deegaanka cali daahir la yiraahdo ay markaa u gurtaan. والله بيش وحبا كالعيا ماشا وحا كالعي وح عادي ما نمكي قتلى يجرحا قودي أي هذا دلدلاي بركا يجي دلدلاي أي هذا السواريقي وحا قدرنا كلين هوبيالا كوكران جبت الاسكي قلينا باشا نمكي حسب الله أيوة سوتشستين وحلين أول بالديارة دا سنة ديبالك ديارة دي هديت شوتشير ما نغا افنتري وحا نغا عنا markaas la isku galgalana xaalku marka halkaas uu maraya Trumpna wuxuu taagay xabad joojina meesha geergalaayo xabad joojin ka soo socota nimanka waa la kulay waxay kadib waxa maqlay barnaamijka kale inta la gaarinba diyaaradaha soo qaateen waxbay ku duqeeyeen Iiraanna meesha ka xaraaqaysa wixii oo dhan marka waxaan wax meel u socda ma aha duka waa isku qataaray heshiis nafla mawaka inta baashaan Lubnaan iyo Iiraan isku xiran yihiin Israa'iilna iyo Lubnaan isku xiran yihiin شاكا شاقيد دوتو ميلا كاري انت عن مركز كل ما انه برنامج كله